بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta ay taariikhdu tahay 25 bisha shanaad 2017 halkan waxaan ka sheegayaa inaan ilaahay u mahadnaqayo oo aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan xorriyadeedii dib aan u helay. shirkan jaraa'id waxaan kaga faa'iideysanayaa inaan ugu horeyn u mahadceliyo Allah ilaahay suura geliyay inaan xorriyadeeda helo. sidoo kale muxuu ahaayay mahadcelinta waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamuud Silaanyo oo ii fidiyay cafis. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. waxaan kaloo aan u mahadcelinayaa dhammaan cid kastoo ay garab istaagtay meesha ay doonto ha joogto har iyo habeen ku fakaraysay sidaan xorriyadeeda u heli lahaa. yani ma soo koobi karo runtii dadyowga yani mana magacaabi karo iminka munaasabad kale iyo waqti kale insha Allah ayaan faahfaahin ku bixin doonaa. waxaan doonayaa oo kale halkan inaan ka sheego yani kulli waxaad isweydiinaysaan oo dee kulli warbaahin baa tiino meelaha aad isweydiinaysaan iyo maxkamaddii iyo sida ay ahayd iyo arrimahaas laga yaabo inaad isweydiisaan yani idinku filan inaan cadaalad helay iyo inaanan cadaalad helin garsoorihii xukumay iyo gudoomiyaha maxkamadda sare hadaladoodii siday u kala duwanaayeen iyo sida isaga hor imanayeen. garsoorihii xukunka igu riday iyo wixii la igu soo eedeeyay waxay ahaayeen iyo kadib wuxuu yidhi gudoomiyaha maxkamadda sare markii ay warbaahintu ku wareysatay London hadalladaas ay u kala duwanaayeen ayaa idinku filan halka inaan cadaalad helay iyo inaanan cadaalad helin. waxaan halkan doonayaa inaan ka cadeeyo xaadithata al-ifk waxyaaba hanfara oo yani la qaada dhigay oo in badan la hadal hayay oo la yiraahdo Cabdimaalik wuxuu ka soo horjeedaa Soomaaliland. Cabdimaalik qarannimadu duulaan ku yahay. waxaan doonayaa halkan aan ka cadeeyo Cabdimaalik kama soo horjeeda Soomaaliland iska daynan ka soo horjeeda Soomaaliland laakiin cadowga Soomaaliland man ka soo horjeeda yani inay wax noqoto oo ay horumar gaadho ayaan doonaynaa. wixii ku duulaana inaan bayaamino aan farta ku fiiqno aan naano waxa weeye kaas ayaa ah cadow Soomaaliland. marka waxaan doonaynaa inaan baabino cadowga wahmiga ee la sameeyay aan waxba kama jiraanka ah ee la yiri waxa weeye Soomaaliya ayaa isu cadowga. runtii fariintaydu waxay ahayd markastaba dadka Soomaalida ahi inay walaalayihiin waa meesha runtii keenta badanaba yani la isweydiiyay Cabdimaalik Soomaaliland ka soo horjeeda macnaheedu ma aha haddaan idhaahdo Soomaali waa walaalo inaan ka soo horjeedo Soomaaliland. markaan leeyahay Soomaali waa walaalo waxaan ka hadlayaa Soomaali meel kastoo ay degto Djibouti yani Kenya Ethiopia Somaliland Muqdisho meesha ay doonto ha degto Soomaali laakiin waa walaalo yani kama hadlayno arrimihii siyaasadda. marka waxa weeye arrinka walaalaynta Soomaalida inay walaalayihiin fariinta jacaylka Ilaahayna in amrayo oo ina leeyahay inamal mu'miniina ukhwa ayaa runtii si khaldan looga faa'iideystay oo dadka la fahansiiyay oo dadka si khaldan loogu sheego leeyahay Cabdimaalik oo ka soo horjeeda Soomaaliland kamana soo horjeeda Soomaaliland garabkeeda ayaan ahay. waxaan doonayaa runtii halkan inaan iyadana ka iftiimiyo yani haddaan anigu maadaama aan maanta xorriyadeedii helay oo alxamdulillah aan dabada taaganahay waxaan doonayaa inaan u sheego madaxweynaha Soomaaliland iyo cid kastoo ay khusayso cadaaladda oo dulmigana nacab waxaan u sheegayaa inay jiraan xabsigan ka soo baxay dad ay ku muddo dhaaftay muddadii xabsiga qaar ay muddo 6 sano ay dhaaftay intay xidhnaayeen oo uu ka dhamaaday oo aan la sii dayn. runtii arrinkaas aan doonayaa in diiradda la saaro oo dadkaas dulman ee dhibaataysan iyaga awgood roobku ma inoogu dii waayay in laga soo daayo oo laga qaado oo jeelka laga soo daayo dad badan oo dhibaataysan baa jira. waxa laga yaabaa in aanay bulshadu ka warqabin. runtii anigu dad halkaas aan ku soo arkay dhibaataysan oo muddadii ay dhaaftay. insha Allah cadaaladda iyo meelihi aan soo maray ilaa booliska ilaa xeer ilaalinta ilaa maxkamadda ilaa jeelka wixii aan soo arkay inaan cadaalad meelaha ku soo arkay inaan ku soo arag mar labaad baan shir jaraa'id oo kale oo faahfaahsan aan ka qaban doona aan arrimaha kaga hadli doona. gabagabadii waxa fooda inagu soo haysa bishii barakaysaneed ee Ramadaan bishaas oo ah bil khayr qabta waxa weeye alxamdulillah markan waxaan u muuqdaaba inaan u soo baxay dadkii jilicsanaa dadkii dan yartaha. marka waxaan ugu baaqayaa samafalayaasha muxsiniinta meel kastoo ay joogaan inay dadka dan yartaa ee dhibaataysan inay bisha barakaysan ay soo kaalmeeyaan ololihii kaalmee kuwana waxa weeye waan sii wadaynaa
mar labaad iyo mar saddexaad iyo ogolaada inaan u mahad celiyo yani si gaar ah ugu mahad celiyo madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo cafisii fidiyay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.